mahuranka xolaha kayasha adiimada cuduryadu areeride kayasha kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii xanaanada xoolaha. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa xuquuqda iyo xanaanaynta xoolaha. waxaana istuudiyaha reediyo Hargeysa marti inoogu ah dhakhtar cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan oo aqoon aad u durugsan u leh cudurrada faafa ee ku dhaca xoolaha. Doctor, assalaamu calaykum. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Doctor, bal marka hore waxaad ka warantaa waxyaabaha maxaan ku dhahdayay bal xuquuqda sideedaba xoolaha lagu xanaaneeyo. Waad maasantahay Faysay. guud ahaanba mawduucan wuxuu ka duwan yahay mawduucyadii hore ee aad halkan uga barateen ee ahaa inta badan caafimaadka xoolaha. waxaan jecel lahay dhinaca kale runtii muhiim ah inaan maanta guud istaagno. mawduucaas wuxuu noqon doonaa runtii mawduuc ballaaran oo loo yaqaan runtii animal welfare oo ah xuquuqda xoolaha iyo xayawaankaba runtii oo runtii soo hoosgalaya iyaguna ma kala maarmaan inta badan xayawaanka iyo xooluhu. waxaad inta badan aragteen aynu maqalnaa human right amba xuquuqda bini'aadanka. taas mid lamid ah ayay runtii leeyihiin xoolaha Rabbi nagu manaystay ee aynu munaafacaadsanno. markaa runtii barnaamijkeenu kaasuu saarnaan doonaa wax badanna runtii aan ka tilmaami doonaa. meelaha ugu muhiimsan ee runtii aan dul istaagi doona anigoo horu geli doona waxaan jecelahay inaan ka horeysiiyo maxay ka qabtaa diinteena suubani xuquuqda iyo daryeelka xoolaha amba xayawaanka. waxaan jecelahay inaan runtii barnaamijkan ka horeysiyo laba xadiis oo rasuulkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay oo runtii taabanaya naxariisashada runtii in dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo xayawaanka iyo xoolaha munaafacaadsanno. runtii laba xadiis waxay daaran yihiin qof ka mid ah runtii dadyowgii hore soo noolaa amba laba dumar ah oo midkoodna ay jannada ku gashay midkoodna runtii ay naarta ku mudatay xuquuqda xayawaanka oo ay dayacday. xadiiska koowaad runtii wuxuu sheegayaa si rasuulka ka sugan sallallahu alayhi wasallam in ay gabadhi naar ku gashay bisad runtii ay xidhay oo markaa aanay runtii quudin oo aanay daryeelin isla markaana runtii aanay usii deynin suuqeeda si ay usoo qaraabatay iyadu. xadiiska labaadna runtii waxa uu sheegayaa isaguna in gabadh ka mid ah runtii dumarkii reer bani Israa'iil oo runtii aan dhaqan ahaan aan wanaagsanayn ay iyaduna runtii naxariisashay u naxariisatay waqti ay socdaal ku jirtay ay runtii haraadan ama ooman oo ay ku dul wareegaya ceel ay waraabisay kabteedina runtii ay ku waraabisay ay ilaahay dunuubteedii hore ku dhaafay sidaasna runtii jannada Rabbi ay ku gashay. inta hadan xadiisyada subnaheeni Maxamed sallallahu alayhi wasallam naga soo gaaray aan hoos uga soo dhaadhaco waxaan jecelahay inaan ku xigsiiyo dadweynaha caalamka runtii maxay ka qabtaa xuquuqda xoolaha amba xayawaanka gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa runtii uga meel yaala iyadana oo shuruucdooda ka mid ah xuquuqda xoolaha cafwan. haddaan ku horeeyo runtii dunida urur la yiraahdo runtii Animal Welfare Council oo soo saaray runtii sharci amba runtii qawaaniin animal welfare ka 2008 waxbaynu ka taaban doonaa. sidoo kalena runtii dawladdeena Soomaaliland 2004 waqtigii wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku sugnaa amba uu mas'uulka ka ahaa Dr. Idris isna runtii sharci uu dhaqan galiyay baa jiray uu aasaasay oo la yiraahdo Somaliland Veterinary Code kaana runtii isagana waxbaynu ka soo qaadan doonaa. inta haddaan runtii aan halkaa kaga baxo waxaan jecelahay inaan hoos bal hadda ugu dhaadhaco meelaha ugu muhiimsan maanta aan jecelahay inaan dul istaago amba xuquuqaha. guud ahaan dunidu maanta waxay isla waafaqsan tahay 5 xuquuqood oo la yiraahdo 5 animal freedom. xuquuqda koowaad runtii waxay sheegaysaa in xoolahaaga amba xayawaanka runtii aad mas'uulka ka tahay ee aad haysataa iyo kuwa kale runtii kula noolba in aanay dareemin gaajo iyo haraad. xuquuqda labaad ee runtii ay u baahan yihiin waxa weeye inay runtii aanay dareemin iyaduna stress wax laanba raaxa la'aan amba runtii diiqad iyo ciriir nafsiyan ah oo noolaanshaha runtii iyaguna inay ka noqdaan free. saddexaad runtii muhiimka ah waxa weeye oo aad inta badan in loogu foojignaadaan bal loo dareemo ay tahay waa inay free ka noqdaan amba ay ka nabad galaan oo runtii aad loola socdo xaaladooda caafimaad xanuun ahaan dhaawac ahaan iyo runtii wax kasta oo dhibaya oo ku keeni kara inaanay runtii caafimaadkoodu sax noqon. ta afraad waxa weeye runtii inay cabsida ka nabad galaan. ta shanaad ugu dambaysan waxa weeye runtii inay helaan meel wanaagsan oo ay ku noolaadaan hooy nasasho leh raaxo leh wanaagsan meel ku filan runtii oo aanay dareemin ciriiri iyo in runtii ay yihiin kuwo xabisan. shantaas runtii waa taas waa nationally amba caalamiyan inta runtii la isla ogol yahay. haddaba meelaheeba runtii muhiima maanta dal ahaanteena aan dareemi karnaa inay jiraan xuquuqahaas inay runtii wax ka dhiman yihiin. meelaha ugu muhiimsan ee runtii maanta la dareemi karaayo waxa kow ka ah daaweynta iyo ilaalinta runtii iyo daryeelka xoolaha oo inta badan waxaad arkaysaa dadka mas'uulka ka ah xoolaha ee Ilaahay gacanta u galiyay ee munaafacaadsanaya
inaysan sidii loogu talagalay iyagana u daryeelin daawo u hurin daryeel u hurin runtii aanay si wanaagsan qodobka isaga uga shaqaynin meesha labaad ee runtii aynu jecel lahayn iyadana dul istaagna waxa weeye quudinta iyo waraabka xoolaha oo neefka rabbi kugu manaystay aad manaaficadsanaysaa ee gurigaaga joogaa amba aad gacanta ku haysaa wuxuu kaaga baahan yahay inaad cunto iyo waraab joogta aad siiso waajibna ay kugu tahay haddiise lagaa waayo inaad dambiilo tahay inaad fasaxdo ambaad iibisa ama isdhaafsano runtii ay waajib kugu noqonayso qodobka saddexaada runtii aan jecelahay isagana inaan ka dhawaajiyo waxa weeye meelaha runtii kawaanada xoolaha lagu gowraco oo iyaguna runtii xoolaha kala duwan qaabab kala duwan amba adeegyo kala duwan oo loo fidiyo waqtiga gowraca ay mudan yihiin amba siyaabo kala duwan loo gowraco taana runtii aad loogu feejignaado runtii oo la iska ilaaliyo weeyaan oo runtii cawrida iyo dhibaatooyinka runtii ka soo gaari kara xoolaha inaad iska ilaaliso maadaama ilaahay kuu xalaaleeyay si wanaagsan inaad gowracato oo aad quudato waxa habboon dee inaad sida ugu wanaagsan aad ku dadaasho xitaa waxa la soo gaarsiiyaba diinteena runtii suubanay halkii gaarsiisay in xitaa mididaad ku gowracayso laga qariyo ta afaraadaan runtii aan jecelahay inaan dul istaago iyaduna waxa weeye seeladaha lagu iibiyo xoolaha faysayda seeladeena xoolaha tagtama seeladaha kalaba waxaad arkaysaa runtii dayacnaan fara badan oo ka muuqata waxaa jira xagga waraabka waxaa la doonayaa intaa neefkaasi laga soo kaxiyey meeshii isla markaana uusan gaadhin ciddii iibsanaysay aanu gacanteeda ku wareegin intaa uu seelada ku xidhan yahay inuu adeegyo asaasiya helo oo joogta waxaa ka mid a hoy waxaa ka mid a harki baa ka mid a waraabki baa ka mid a calafki baa ka mid a intaa uu halka ku xidhan yahay waxaa ka mid a daryeelkii kale waxaa ka mid a inaan laga nixin inaan baabuur runtii aanay marba dhinac u dhaafin aanay guuxa ku dilin xoolahan xoolo maaha baabuur arkay waa xoolo miil laga keenay marka waxyaabahaas oo dhan runtii waa waxyaabaha iyagana ay mudan yihiin xoolooyinta halkaa joogaan in lagu ilaaliyo oo loo dhammaystiro qodobka kale aan jecelahay runtii inaan dul istaago waxa weeye xoolaha iyo bilicda magaalada maxaa kala haysteegana dowladihii hoose inta badan waxay ku hawlan yihiin inay xoolihii magaalada ka saaraan wanaga lana xoolihii haddana waa inay fursad iyo xuquuqdi helaan sidii baa la isku waafajinaya qofka xoolaha dhaqanaya runtii waxa wanaagsan marka hore inuu dooro deegaankii saxda ahaa ee xoolahan ku dhaqan lahaa waxaynu ogsoonahay xoolaha maanta magaalada ku nool cuntadoodu runtii ma wanaagsana caanaha laga maalaya ma wanaagsana adkooda laftigiisu ma wanaagsana adka xitaa laga helaya xitaa maaha waa dhadhamada xitaa lagu kala garay marka hudheelada iyo meelaha xaafadaha lagu qaadloonaya kan waa beledi kana maaha marka runtii qofka u diyaar ahay inuu xoolo dhaqdo waxa wanaagsan marka horeba inuu ama faam u samaysto amba uu magaalo ka saaro amba uu daryeelkooda huro qofku waxa sameynaya 5 riyaad ama 10 riyaad buu dhaqanayaa subaxina oo ka qaadaya meesha doonta gelis haridaas waa la soo dilayaa meesha doonta gelisa cunto xun bay soo cunaysaa waxay soo galabsatay iyo wixii baahiyaanba adeeg ay weyday labadaba adiga ilaahay ku weydiinaya marka taana ha u diyaar garoobaan dawladaha hoosena runtii waxaan soo jeedinaya madaxda dawladaha hoose maayarada ee kooka yihiin in iyaguna runtii ay qorshe weyn runtii ka yeeshaan wasaaradda xanaanada xoolaha iska kaashadaan bal hadda barqaabkii xoolaha loo maareyn lahaa qodobka afraad runtii aan dul istaagay waxa weeye waxaan maqalnaa inta badan eeyba la xasuuqaya oo inta badan magaalooyinka ka maqalno eeydaas runtii markay dhibaato keensadaan waxa wanaagsan in la xasuuqaan ba runtii la gumaadaan ba la dilo qaabkii baa loo dilaya runtii xuquuqda qayb ka soo galaysa laba ujeedaba runtii eeyda in loo laayaa loo soo jeediyaa in dhibaatadooda khatartooda bulshada laga badbaadiyo ay ku hayaan ama bilicda magaalada ay ku hayaan talabaadna waxa weeye runtii iyaga laftooda marka la leynayo in xuquuqdooda marka hore laga fikiro oo runtii meel la dhigo balaan cad laga yeesho dabeetan lagu dhaqaaqo fulintiisii waxa dhacda inta badan marka eeyda la sunayo inay yaacaan deetna eey kastaaba isagoo nafla caarida uu meel ku baqtiyo intaa uu suntaas ku jirtana waxa dhici karta inuu khatar cid soo gaarsiiyo oo aamin laga maaha sidaas la mid ah intaa uu runtii suntu ku jirto neef adigoo 5 mirir amba 1 minute ku dili lahaa inuu maanta dhan 30 mirir amba 1 hour uu galgasho amba magaalada dhex cararo isagoo runtii nafla caarida xuquuqdiisa bay qayb meel ka dhac isagana ku tahay waxa taa la mid ah eeyda inta badan magaalada joogtay xoolaha kale magaalada lagu haystaba waxaan aragnaa caruur shiidaysa caruur runtii aan qaabkii u wanaagsan aan kula dhaqmahayn ay maanta dhan leerinayo suuq la wareejin arkaysaanba awr geel magaalada dhex joogo iyaguna ciyaalka ay shiidayaan dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay runtii in laga foojignaado cuqubadoodan la iska ilaaliyo caruurta waxaa muhiimsan in waqtiyada iskuulada ay ku jiraan la raaciyo xiisad la yiraahdo human education amba qaabka ugu wanaagsan xoolaha loo daryeeli karo la saaxiibi karo loo munaafacsan karo inaan runtii cadaawad loo arag iyo wax culays ee loo arko runtii wax wanaagsan oo saaxiibna la ah faa'iidana bulshada nool doctor waxaad sheegtay maxay tolay in laba xadiis baad soo qaadatay ma sha Allah labada xadiis waxa weeyaan mid maxaan ku dhahdaay gabadh intay xidhay bisad ay dhimatay gabadhna ay bay waraabisay waliba labada dumar akhlaaqdoodu way kala fiicnaayeen sida aan maqlay ama ay tahayba gabadha bisada xidhay ayaa akhlaaq wanaagsaneed gabadhan aygana dee waa iska aluusaal ba iska marka ka waran maanta dadkeenu ayda iyo bisadaha waa kuwa ugu daran ee aynu ugu dilid badannahay bar hadda eeg
aynugu dilid badannahay markaa bal sidee baa loo wallahi maareyn karaa fiisay labada xadiis runtii waa laba xadiis runtii oo saambal ah ama tusaale wanaagsan u ah bulshadeena waayo gabadhaasu gabadha khayr ahayd waxay kaliya ku cadaan murata bisada inta gaarsi gabadha kalena runtii backgroundkeedan ba taariikhdeedu runtii ma ahayn gabadh wanaagsan laakiin waxay iyaduna ku janna gashay ee jannada rabbi ku heshay halka xasanaad ee xayawaanka u samaysay maanta intaad qiyaas kale sarkiisa dhexdeeda runtii dadkeena ma dareensana waana taa runtii mawduucan maanta inagu kaliftay inaan badbaahiyaha kaga hadalno bulshada ayna dhegeysanaysa meel kasta iyo aamin kasta ay ku sugan tahayna ay sideeda runtii u qaadato maanta inta maqashay iyo intay gaadhsiin doontana waajib bay ku tahay oo runtii arrinkaas dushoodu fuulay xujadaasu iyagana u tala runtii wixii ka dambeeya caruurtoodana waajibaad baa ka saaran iyo xoolahoodaba midda kale tan doctore inta ayda la kaxeeyo la leynaayo dee gabadh baaba jannada ku kashay sidee baa loo leynayaa bal sunta loo siinaya soomaha in wasaaradda xanaanada xooluhu ay ka digtoonaato oo tarankan ay samaynayaan aydu dalka laga kantaroolo noloshooda tarankooda haddii rabbi idmahayo iyo dhibaatadoodaba runtii soo kordhin doonaan iyo qaabka u noolaanayaan iyo bilicda magaalada dhibaatada ku hayaan waxaas dhan runtii waxay ahayd marka hore in under control inay ahaato oo runtii siyaasad laga lahaado lana daba socdo tii haddii aanay sa dhicin wax kastoo runtii khatar biniaadanka gaadhsiin kara waxaa muhiim ah diinteena ogashahay runtii in laga takhalusi karo ama meesha laga saari karo marka iyadoo taa laga duulayo oo haddana aan laga tegin welfareka ama xuquuqdii runtii ay xayawaankaasu lahaa waxaa wanaagsan runtii inay dhakhaatiirta xoolaha iyo wasaaradda ka mas-uulkayay iyo runtii kolba cidda dowladaha hoose ka mas-uulkaya arrintaa fulinaysa ay iska kaashadaan sida ugu wanaagsan runtii ay u fuliyaan marka taana runtii intaabaan kaga odhan lahaa tan waxaan ku dhahdaa qodobkan saddexaad dowladdu maasha allah kambeyn way qaaday inay xoolaha magaalada ka saarto oo bilicda leega laakiin dadkeenaad moodaa inay ajaanib yuuna muwaadin hayn bulshadaa diiday hayo bulsho xoolo dhaqataa bay nahayo ma xoolo dhaqatadii in dibadii ay ku dhaqdaan iyo inay magaaladii caasimad bay imka noqotee laga yareeyo oo runtii bilicda magaalada iyo runtii caafimaadka iyo nolosha dadka iyo xoolahaba labada mi iyo magaalo loo kala garto faa'iido u tahay oo haddii xitaa qof magaalada soo doonay inuu ka baxo dee farms baa jira maanta la xidho xoolo xaraysan oo halkooda lagu daryeelay caafimaadkooda iyo cuntooda waxooda wixii borortiga amba faa'iidada soo saarayna runtii si wanaagsan magaalada loo keeni karayo marka ma dowladda laga rabaa mas'uuliyadda amse qofka ridan dhaqday qofka dhaqday bay saaran tahay haddii sana aanu taa mas-uulka aanu mas'uuliyadda qaadi karayn waxaa waajiba runtii inuu xoolaha iska xaraasho amba dowladdu ay gacan kaga qabatay ka xaraashto waxaan intaa aan runtii qodob kale aan sii raacin lahaa aan samayn lahaa iyadana qaybta runtii qayb kale oo iyaduna muhiim ah oo ah dameeraha runtii magaalada lagaga ganacsadaanba runtii inta badan ku shaqeeya ee biyaha ka shaqeeya iyo qaaditaanka alaabaha kaleba shaqo wanaagsan bay runtii dameeruhu inoo hayaan waan hambalyaynayaa dameerlayaasha iyo dameeraha shaqaday magaalada u hayaan oo magaalada runtii dee biyaheedii iyo baahideeda wax badan bay ka qaataan ay ka qabteen iyadoo taasu jirto haddana waxaa runtii jiri kara baahiyo badan amba xuquuqo badan oo runtii dameerahaasu ay leeyihiin ha ugu horeysa xuquuq jinsiyeed oo maanta hargeysa waxaa dameer jooga waa dameerun meel dameer maraysa hargeysa ma jirto xuquuqda jinsigu runtii waa xuquuqaha dameeruhu inaga mudan yihiin in loo ilaaliyo waxaa kaloo runtii muhiima neef under age amba runtii aan daadii lagu raraaya gaadhin inaanu rari karin ninkaa dameeraha maasha allah waxaan ugu wanaagsanad inaan sheekh u yeedho oo maanta sheekhna laakiin insha allah mar kale mawduucan sheekh baynu la kaashanaynaa sababtoo ninkan maaragtay maxaan ku dhahdaa dameerka waday xuquuqda ay saaran tahay dameerku isagaa dhaaminaya isagaa lacag ka soo saaraya isagaa daalinaya asaga laftigiisu dee shareecadda islaamka waxay ka qabto maanta dhakhtarka inoo sheegi lahaa taas oo ay tahay waxa qaarkood runtii waa daryeelaan waa mahambalyanaya waa bogaadinaya haddana runtii taasi jirto waxaa jira koob badan oo runtii ku tacadiya ilaahay khayraas siiya mid kamid a maayartii hore magaalada hargeysa soo maray ayaa runtii xadeeyey xadiga biyaha ay qaadi karayaan ama foostada inta shirikaane amba litri ay qaadi karayaan markaan taa dhaafo waxaan jeedaa dameer aan runtii caafimaadkiisu fayoobeyn oo la rarayo oo aan aragnay indhahay ka saarnay namar ha lahaado amba habu kabe waxaa jirta dameer da-dii ka yar oo isna runtii la rarayo oo aan isna habbooneyn in rarkaa loo isticmaalo waxaa jira calaf iyo cunto la-aan iyo biyo la-aan runtii qaar ka mid a dameerlayaashu iyaguna ay sameynayaan ku tacadi ay ku marinayaan neefka ay runtii munaaficadsanayaan waxaa wanaagsan markaad munaaficadsanayso inaad isna baahihiisa daboosho sidaasaa runtii diinteena bogaadinaysa biniaadamnimadana runtii u wanaagsan taasuna runtii intaasan iyadana aan doonaya inaan kaga baxo qodob kalean runtii aan jecelahay inaan qeybtaa hore aan kusoo gebagabeeyo qodobkaasu waxa uu daaran yahay inta badan xooluhu waxay mudan yihiin caafimaadkooda
iyo daryeelkoodaba qofkaasaan hor soo sheegnay ayaa la dul saara dhaqanaya waqtiyo haddaba gaar ah ayaa jira runtii oo daryeelkooda in aad loo sii ilaaliyo ay mudan tahay sida runtii naqaano hooyadii dhallaanka ay ku naqaanaba waqtiga hooyadu nuujinayso iyo waqtiga ay ilmaha sidaba in si gaara loo daryeelo xooluhuna saasay mudan yihiin xooluhu markay riman yihiin iyo markay irmaan yihiin toona waa xaaraan in la iibiyo cafwan hilib ahaan loo iibiyo oo la qalo oo seylada la geeyo isla markaana kawaanka lagu qalo waa ku xaaraan kii iibinayay iyo runtii kii iibsanayba hadduu dareensan yahay waxaa kaloo khalada runtii waqtiga ay foosha ay ku jiraan xoolaha kala duwanay ee dhaqano in laga qayb qaato qaabkay u dhal lahaayeen runtii si gaarna looga warhayo oo marka dhalmayn ka hadlayno xoolaha qaarkood sidooda iska dhali karayaan qaarkood in laga dhaliyo runtii ay doonayaan qaarkoodna runtii in operationska kala duwan ama inta badan xoolaha imkaan ku samayno oo qaliin lagaga soo saaro ayay runtii ku waajibaysa markaa saddexdaas xaaladoodba runtii si dhow loola socdo waqtigaasna runtii wixii daryeel ay mudan yihiin dee aan laga gaabsan ee la siiyo waxaan runtii aan xaaladda raacinaya inta badan waxaanu aragnaa dad nala soo xidhiidha jaamacad ahaan jaamacadda gulis waa jaamacadda runtii inta badan qalinada ugu badan aanu ku samayno 2 sano u dambeeyay waxaanu samaynay in ku dhow 100 qalin oo kala duwan oo xoolaha aanu fulinay oo bilaasha gacantoodu daaweyntooda iyo runtii la socodkooda iyo ka warhayntooda si bilaasha aan ugu socono oo noo diwaan gashan 100% ilaahay alxamdulillaah guulaysan marka iyadoo dadkii runtii freega adeega loogu samaynayo adeega lacag la'aanta loo samaynayo inuu haddana runtii ka cagajido neefkii meeshii keeno ama markuu kula soo xidhaba adeetana adigoo diyaar u ah aad weydo sidii kii u dambeeyay jimcihii dhaweyd anagoo fasaxa oo ciida ku jira ayaa nagala soo xidhay halkii baan nimi waanu balmin dhakhaatiirtii waxaa dhacay deetana qofkii lahaa riba in lagu qaloocday kusoo dhali weyday runtii dee fooshu silca ku ahayd ee anagu lafteedu aan fasaxii waa soo baxnaa u nimi inuu haddana keeni waayey goobtii runtii waa ayaan daro waana waxyaabaha runtii ugu kalifay mawduucan maanta inaan xuquuqda xoolaha amba xayawaanka aan runtii u qondeeyo kaasoo kale runtii markuu neefkaasu isku dhinto isagaa runtii rabbi ka xisaabaya maalinka aakhiro adduunyadana runtii isaga ay ku yeelanaysaa dhibaato ama saameyn wixii ka yimaada iskabadda in bilaash lagu qabtay xitaa wixii inuu lacag ka bixiyo ayaa runtii ku waajibaysa waayo intii hore uu munaafacaysana intii intaa ka badnayd horta bulshadeenu maba haysato inay xooluhu cadkeeda wayna cuni naqaana caanahana wayna cabbi naqaana laakiin ma garanayno inaynu daryeelkooda waayo dheer haddii imika maxaan ku idhaahdaa neef dee si fudud ayagoo meel u goyn karaayay haddana qof waa lala xarar lahaa ayaana la danayni haye waxaad moodaa bulshada badankeedii inaanay ku soo jeedin ama aanay runtii aada u dareensanayn waxaan kaga faa'iidaysanaya fursadda runtii aan dareensiinaya inaanu jaamacadda ee gulis ay furtay magaalada hargeysa ka furtay dhakhtar caafimaad oo bilaasha daaweyntiisa shaybaadhkiisa qalinadiisa gacanta iyo daawada iyo qalabkuba intaba inay bilaash yihiin iyaga kaliya laga baahan la soo xidhaan isla markaana ay keenaan habeen iyo maalin uu shaqeynayo oo ay sheegayaan way leedahay wasaaradda iyaduna way leedahay runtii taasaan dadka dareensiin lahaa inay meelaha ay maadaana dee xoolahooda ay ka dadkoo kale ka dhigaan doctor waxaa kaloo jira balka waran xaraaska cadkii oo cas baa la soo iibinayaa diirkan adag bay malaa moodeen inuu shuba ka daadegayninoo hilibkii oo wada cas baad arkaysaa bataa ka waran waxa weeye in la jugayo amba namar lagu dhufto xoolaha marka hadhowto la qalana ay ka muuqato meeshii dee dhiigu ku fadhiistay ee hilibkii ka duwanaato inta badan marka laga hadlayo meat inspection waxa la dhahdo amba hubinta hilibka iyo qabkiisa qodob ka mid ah in la arko hilibkii iyo midabkii ka tagay casaan ama dhiig ku fadhiistay xanuun maaha laakiin waa budanba jug kale oo nabar la gaarsiiyay neefka xuquuq ahaan dee waa xaaraan hilibka laftiisana waxba u dhintaa oo hilibkaasoo kale inta badan dee caafimaad ahaan waxba yeelmaya laakiin in la dhoofiyo haddana dee politically uma wanaagsana waxa laga yaabaa siyaasad ahaan ama dhaqaale ahaanba inuu dhaawac kaa soo gaaro oo adiguba neefka marka maanta qashay kala badhay castayanba midabka ugu tagaan buu dhiig ku fadhiyo dee intaa inaad ka jarta mooyaane waxaasna waa nimanka gaadhiga markuu la soo socdaan xaraasaya bulshadeena soomaaliyeed dhammaanteed waxaanu runtii ku baraarujinaynaa inay xuquuqaha kala duwan ee aanu soo xusnay ay runtii dareen fay dhow u yeeshaan isla markaana ay u soo jeestaan ay iska ilaaliyaan waxyaabaha kaga soo noqonaya ilaahayna kaga baqaan dhakhtar maxamed aad baad u fiican tahay aad baan kugu mahadcelinaya sida wanaagsaneed noo soo aqbashay doctore bal markaana waxaan eegaynaa dhinaca khadka telefoonka
bal qofka hoodiya nasiib u yeeshay khadka ugu horeeya halo السلام عليكم. calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu codkaagana waa kor yara qaad macaanay ها وأيان قلعة وكسر هذا ليس مقالة هرقيسة. waan kusoo dhaweynayaa walaalo marka hore adiga doctor Paul aad baan idin salaamayaa waan kaa qaadnay macaan qodobada muhiimka ka hadlaysana waa xaweeye qodobo aad iyo aad loogu baahan yahay muhiim ah xuquuqda xayawaanka iyo xoolahaba laakiin bulsho ahaan waxa loo baahan yahay marka la doonayo in walaal wax la bedelo aasaaska in wax laga bilaabo walaal halka basic wax laga bilaabayo ubadkii iskuulada dhiganayay in la baro xuquuqda ay leeyihiin xayawaanka iyo xooluhuba siyaasad cadna laga yeesho jiilasha ka soo baxaya jaamacadahana loo siiyo chance inay fulin karaan maskaxdooda waxa ku jira horumar wadan iyo xagga xoolahaba dhaqaalahooda qodobo muhiim ah ayuu soo qaaday doctorka oo ah in xayawaanada wadanka ku nool sida ayda iyo bisadahaba waa la mid iyaguba dhaawacyo badan baa wadanka loogu geystaa waxaan waa wax xuquuq leh xaq la baabiyaana wuxuu keenaa un cuqubadooda aad iyo aad bay bahlada ay noogu badan tahay meeshaad aragtaba ayibaa ku dayacan oo baabuurka ku jiraya isagoo qayb ahaan noolo oo aan waxba u qaban karin baad dhaafaysaa bulsho ahaana uma tababarnin inaad ay saacidiba karto ood gacantaba u filin karto sababtoo ah waxaba loo arkaya waxaan jirkiisaba la taaban karin taana diinteenu walaal may odhanoo ayga carbiska waaba la adeegsadaa oo diinteenu way noo banaysay oo wax kaba marmarka qaarkoodeen caqli ahaan insaankaba ku xiga markaad ayga eegto siduu wuxuu fahmayay iyo siduu wuxuu garanayo in dhinac walba looga faa'iideysto walaalo xaggii booliska looga faa'iideysto oo dhankii islaamku inoo baneeyay ee ay bahaladaasi caqligooda looga faa'iideysan karayo loo eego tarankoodana siyaasadda keliya lagu kantaroolaya ay noqoto tarankooda bahalada in la yareeyo oo dawladdu ay ka yeelato siyaasad bahalada tarankooda lagu yareynayo oo de waxa weeyaan waynu ku badhaari lahayn baan anu isleeyahay bahaladaada in xaqooda iska ilaalino aad baa loogu badhaari lahay oo horumar baabaynu ka heli lahay xagga xooluhu aad iyo aad bay walaal daamij weyn wadanka ugu qabaan way yaraadeen oo waxa weeyaan siirayaashii waa laga ootayo dhulkii ay bidaaqi lahaayeen magaaladii way ku dayacan yihiin dadkii aad iyo aad baa la isugu dhiban yihiin qodobadaana walaal bal in xagga dawladda iyo dadkaba la iska kaashado oo magaaladana laga saaro xoolaha oo bal hadda maayirka magaalada Hargeysa ku dayda sida magaalada Berberaba looga wada saaro xoolaha soo aan afkun laga orno si ficil loo muujiyo ayaan soo jeedin lahaa aad baad mahadsantahay khadka xiga halo السلام عليكم. calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa soo dhow magacaaga halkaad ka soo hadlayso iyo su-aashaad dhakhtarka weydiinayso intaba israaci waxaa la yidhaa xasan baa la yidhaa xasan gaboobe waxaan joogaa halkan Hargeysa idaacadda haye kiyaaba xuquuqdoodii la ayduna aydi bay leedahay xuquuqa la siiyo haye ta kale aydu nadaafad ahaan waxay ku hayaan dhibaato wadanka ku hayaan haye aydiina way ka bateen haye kaadidoodii xaarkoodii takhfiifka soo duulayay magaalada Hargeysana raashinka dibadda ku samaysataa haye takhfiifkii ka soo duulay ayda iyo raashinka ay dhigayeen baa fuulay raashinkii dadku cunayay haye marka aydan waxay u baahan tahay wax wadanka inta ka ururiyalaayo oo fogeeya oo wadanka laga tirtiro sida kumika dadkii bay ka farabateen imika haye de marka hawshaasaa loo baahan yahay dawladdiina uma jeedo haye xoolahan magaaladii lagu soo daayeen ee xitaa dadkii boobayana xoolihiina wayna wadanka laga saaraa oo magaalada laga saaraa haye hawshaasoo dhan baa loo baahan yahay bal dawladdana waxay geliyeen doctor haye wallaahi waa runtii ayaan iyo cabdilaahi xasan iyo xasan gaboobo hadda u dambeeyey saddexdaa runtii ka qayb qaataba ray wanaagsan bay soo jeediyeen dhammaantoodna runtii soo jeedin bay hadalkooda u badnayd shicbiga dawladna runtii haddaan la iskaashan dee waxuma hagaagaan waxaan odhan lahaa bulshaduna qeybteeda ha qaadato dawladduna runtii wax badanna way qabatay inta hadhena runtii iyaguna kolley maanta way maqlayaan badankoodii ha ku daraan ayaynu soo jeedin lahayn dhammaantoodba runtii aad u mahadsan yihiin fikirkaa tugan iyo talooyinka runtii wax ku oolka ayaynu soo jeediyeen waxaan isla garanno dhammaantood runtii inay dee baahiyaha amba xuquuqaha xayawaanka ee kala duwan inay yihiin kuwo dhexdeena ku dayacan runtii horumar ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaana runtii dhibaato weyn ama dhaawac inoo geysan kara xasan gaboobo kale haddaan kusoo yar noqdo eyda runtii khatar badan bay runtii iyo dhibaatooyin badan bay deegaan iyo dad iyo magaalaba ay ku hayaan iyo bilic ahaanba ma lihiin runtii hala daayo xora ku noolaadaan laakiin waxaa leenahay haba la gumaadaanba hala xasuuqee si wanaagsan runtii xuquuqdooda ku habboon ha loo laayo ha la iskana kaashado marka la leynaya laftooda la sunaynayana dee inay khatartan ka badanba ay keensadaan baa runtii ka waajibi ayaaba laga yaab maybe dhici kartaba marka waxyaabahaasa runtii soo afjarbay marka si wanaagsan xuquuqdooda loo ilaaliyo iyagana qaabkii wanaagsan bay u dhimanayaan
dadkuna runtii si ugu wanaagsan bay uga nabadgelayaan aad baa doctor oo mahadsan tahay bal hadda khadka u dambeeya markan aan eegno hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودوا ولاalo waan soo dhawaay faysay waa shucayb oo degmada Baki ku sugan runtii dadka xuquuqda xoolaha meel kaga dhacay faysay waa dadka laba maar doonaya inay isku darsadaan haye waa dadka doonaya magaalo inay degaan xoolihii baadiyaha lagu dhaqanayay inay dhaqdaan haye anigu waxaan xasuustaa qoyskaygu wuxuu ahaa dadka ugu xoolaro degmada Baki waxa laakiin la tagtay duufaantii sagar oo hadda waxa nafli kaba joogo haye waxaan xasuustaa inaan geey jirnay xeebaha gobolka Salil iyo dalka Nigeria Ethiopia intaba meel kasta uu nala tagi jiray haye xuquuqdiisana aad baan u dhowri jirnay wax laakiin inta magaalo xataa ila ag maray ari waxaad arkaysaa xoolaha dayacan waa dad magaaladiina qayb leh arigina doonay inay dhaqdaan haye dadkaas waxaan leeyahay haddaad doonaysan xoolo inaad dhaqataan baadiyaha geeya haddii kan xoolaha ka daaya silacooda magaalo waa inay u go-aan dadkaas dhinaca kale dameeraha oo kale xuquuqdooda meesha laga dhacaya iyaguna waxaa imika laysla ogolaaday dameeradii xidhnaa markay dadkii cuneen ee loo iibiye dameere dhidig in lagaga raysay dadcunnimadii daayeen markaa dadkaasi dameerahana waxaan leeyahay war dameere dhidig u iibiye dameeraha dad cunka oo kale waxaan la ogaaday inay dadkaani cunin marka dameere dhidig loo iibiyo intaasaan kaga qayb qaadanaya aad waad u mahadsantihi aad baad shucayb u mahadsan tahay aad ayaan kuugu mahad celinaya si wanaagsan aad noola soo xidhiidha mar walba doctor dhakhtar cabdiraxmaan maxamed aad baan kuugu mahad celinaya si wanaagsan aad waqtigaaga noo soo siisay intaasi ayaan dhageystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeennii xanaanada xoolaha barnaamijka mid lamida waqti kale intaynu ku kulmi doona waa farsamadii saacad yare iyo faysacil xuseen oo ku dhaafay nabadgelyo ammaano allah ismaqal dambe oo xiiso leh noloshiyo mahuraanka xoolaha